gudoomiyaha golaha deegaanka Gabiley ahna duqa magaalada Gabiley Shacib Maxamed Muuse ayaa si jirayd oo ku qabtay xafiiskiisa ku shaaciyay muddada la qaban doono siifiyada cid kasta oo rabta inay ka qayb noqoto shaqaalaha diiwaangelinta madaniga ah ee ka bilaabmaysa gobolada Somaliland waxaana xafiiska maayirka ku wehelinayay shirkiisan jirayd barsaab ku xigeenka ahna kusimaha barsaabka gobolka Gabiley xogayaha fulinta dawladda hoose iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland iyo hay'adda shaqaalaha gudoomiyaha jaamacadda Timacadda Gabiley xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley waxaana ugu horeyn muddada siifiyada la qaban doono shaaciyay maayirka degmada Gabiley Shacib Maxamed Muuse wuxuuna tilmaamay in diiwaangelinta madaniga ah ee gobolada Somaliland ay gobolka Gabiley ka shaqeyn doonaan cid kasta oo ku guuleysata imtixaanka ay qaadayso wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland maanta ay bishu tahay 25 bisha 26 bisha afraad 2014 waxaanu gobol ahaan iyo degmo ahaanba ku dhawaaqnaa in ay ka bilaabmi doonto gobolka Gabiley iyadoo Somaliland ay tahay 7 qaybood ama 7 eeda laakiin Gabiley in diiwaangelintii madaniga ay araajidoodii bilaabmayso masifiyadii la qabanayo berri toole oo ay bishu tahay 27 bisha afraad 2014 taasi oo lagu qaban doono sida agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha sheegay hoolka jaamacadda Timacadda ama ay qaban doonaan isku dhafa oo ka tirsan hay'adda shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo jaamacadda Timacadda saddexdaas oo saddex gees ayaa iyagu qaban doonaan kulley marka siifiyada la qabto ay iyagu sheegaan muddada iyo deadline-kaba imtixaanka waxa lagu geli doonaa haddana isla jaamacadda Timacadda oo ay roolkeedana qaadanayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda shaqaalaha iyo jaamacadda halkaas runtii lagu soo kala bixi doonaa shaqaduna halkaas ka bilaabmi doonta wixii ka dambeeya marka imtixaanku dhamaado cidii ku guuleystay soo baxda ayaa dawladda hoose iyo gobolka iyo haddana wasaaradda arrimaha gudaha dib isugu soo noqonaya xafiisyadii iyo qaabkii loo iyo sidii loo hawlgeliyay iyo roolkii la kala lahaa waa maalin taariikhi weeyaan oo maalin shacabka reer Somaliland guulayay dawladda waxyaabo kale horumarkii dawladdoodiba waxay ku dartay in ay ku dhiiratay dawladdu maanta inay diiwaangelinta iyadu iskeed u hirgeliso oo ay cidna ka caawin iyaduna cidna isku haleynaynin oo maaragtay ay tahay dawladdu ku dhiiratay lacagta inta la ku baxaysana meel kale looma doonayay waa lacag dawladdu ay ku tashatay shacbigeeda iyo gudaheeda in la iska qaado diyaarna runtii ah marka anagu dawladda runtii waa ku faanaynaa in ay guul weyn tahay inay dawladdu hirgelisay markii koowaad kalideed in mashruuca intaas soconaya 6 bilood inay dawladdu ku dhigato aanay cidna gacmaha hoos qabsan oo cidii wax keenaysa bixiyaashaday tahay ha keenan sax laakiin inay iyadu isku tashataa waa arrin muhiim ah taasi waa taawi dhinaca kale waa shaqo abuur oo dad reer Somaliland oo dawladda Somaliland ay ka qabsoomaysaa dad shaqo balaaran ka helaya Gabileyna waa uu jaarso iyadoo gobolkay Gabiley ay ka qayb galaysa oo waliba mudnaanta la siiyay dadkii wax bartay shaqo kastaana saasay noqon doonta anagu waxaan mar walba degmo ahaan sanadkan 2014 hadii shaqaale cusub oo waxa jiray iyaga laftooda dawladda hoose waxaan u qaadanay waxaan muddaad kooban siinay jaamacadda lagu qaado halkaas oo imtixaan kasta oo gobolkan looga baahan yahay waxaan ku soo jeedinay in lagu qaado jaamacadda Timacadda oo macallimiinta ay qaadaan oo ardaygii wax bartay uu jaariskiisa helo mar walba la gaari doonaba ay ahaydin qofku aqoontiisa ku meel maro maanta way taaganahay qofku wixii uu soo bartay ilaahaydii intuu walaalaha noqdaan intuba isku dhawaadaan oo qofku wax bartay iyo sidoo uu shaqaystay su'aalka uu soo waxaan kaga baxayaa in wacyigelin bilaabmi doonto barnaamijka wacyigelin buu leeyahay qofna xadka ka soo gali maayo deegaanka ilaa isagoo sita kaarka mooyaane aqoonsiga mooyaane qofna uu dheer seexan maayo qofna xoolo laga iibsan maayo qofna dacwad loo qaadi maayo qofna waxba loo qaban maayo way qofkii muwaadinka ahay kaarka sitay iyo qof aan muwaadin ahayn xataa shaqada isku mid ah shaqada heli maayo qofka muwaadin ahayn waxa soo dhamay runtii ka hortagaysa saasaan ku dhawaaqay anaga gobolka barsaabka ayaa hadda doona ismaha barsaabka sidoo kale waxa ka hadlay barsaab ku xigeenka ahna kusimaha barsaabka gobolka Gabiley oo ah tiimkii loo soo diray gobolka Gabiley inay ka hirgeliyaan qabashada araajida iyo qaadista imtixaanka
ardayda jaamacadaha diiwaangelinta usalaysnaa diiwaangelinta muwaadinka runtii arrin aad iyo aada u guuloway waa tallaabo hor loo qaaday dowlad ahaan arrintaasi inaga Gabiley ahaan gobolkeena ardayda jaamacadda Timcadde ee gobol ahaanba ay nooga qayb galaya anigoo gudoomiyaha jaamacadda shuruudaha looga baahan yahay u dayn doona waxaan ilaaminaynaa sida uu sheegay maayarku in ay bilaabmayso barito qabashadii araajida ee ardayda haysata shahaadaha jaamacadda ee ka qayb galaysa diiwaangelinta ka qayb gali doonta isna waxa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Timcadde Gabiley oo ka sheekiyay qaabka looga baahan yahay dadka siifiyada soo xareynaya ugu dambeyntii waxa hadalka soo gabagabeeyay mas'uuliyiinta ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha diiwaangelintan madaniga ah ee ka qabsoomaysa Somaliland ayaa maalmihii u dambeeyay aad u hadal hayeen dhalinta kala duwan ee dhameysay jaamacadaha dalka ee ku dhaqan gobolka Gabiley balse kaliya la qaadan doono 36 qof oo gali doona imtixaan lagu kala bixi doono isla markaana si rasmi ah uga shaqeyn doona diiwaangelinta madaniga ah ee ka bilaabmaysa Somaliland wa Jaafar Awil Hereri Kalsan TV magaalada Gabiley